kulanti wanaagsan xal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago weerarkii iyo waliba hoobiyaashii kala duwanaa ee lagu qaaday xarunta xalana iyo qasaaraha culus ee halkaasi ka soo baxaya iyo war saxaafadeed culus oo ay soo saareen madaxda xarunta xalana gaar ahaan ciidamada midaalinta ee ATMIS ayaa rabaa inaan xogta qarsoon halkan idinku la wadaago soo dhawaada muuqaalka hadii ay tamarku ugu horeyso ku soo gaaro noo like gareeyo share garee meel dheer nala gaarsi aragtina qaybta hoose faalada commentiga aad ugu wadaagi kartaan hadii ay tamarku ugu horeyso bogga uu ku soo gaaran kamid noqon saaxiibada sida maalinlaha wararkeen halkan ugu taxan waa soo dhawaada maxay tahay xogta iyo waliba sidoo kale qasaaraha baaxadda leh ee dhacay misana markaasi aanan si weyn dawladda Soomaaliya ugu tacsiyeeynin oo hadda soo shacbaxayso in xarunta xalane hoobiyaashii kala duwanaa ee kooxda aas ay ku weerareen misana ay la dhaceen ay jiraan waqtigan la joogay dhaawacyo iyo dhimasho aad u fara badan taasi oona hadda ay ku sheegayaan madaxda xerada xalane ama markaasi ciidamada nabad ilaalinta ATMIS hadda ay ku tilmaamayaan in ay jiraan qasaare aad u badan dhimasho iyo dhaawacba leh ajaanibtii halkaasi joogtay iyadoona markaasi wararku ay sheegayaan in markaasi ay jiraan dhimasho iyo dhaawacyo waaweyn taliska ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ayaa si kulul u cambaareeyay weeraradii ee madaafiicda ahaa ee subaxnimadii axadii tagtay ee markaasi ay ku qaadeen masana ku soo dhacay xerada xalane taasi oo markaasi sababtay dhimasho iyo waliba dhaawac war saxaafadeedka ATMIS ay soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarku ahaa mid naflacaari ah kaasi oo howlaha ay u joogaan ama ay u taagan yihiin ay leexleexad ka gali doonin weerarka ee naflacaariga ah oo markaasi aanan celin doonin amniga iyo waliba ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in aan raadino nabad waarta iyo waliba mid ee ka dhalata Soomaaliya waxaana mar kale xaqiijinaynaa sida ay markaasi ugu go'an tahay in aan markaasi la dagaalano mise dagaalka culus aan ku qaadno kooxda aas ayaa lagu yiri war saxaafadeedka in aan markaasi dhisno Soomaaliya oo nabad ah oo barwaaqo ah ayuu yiri ergeyga gaarka ee gudoomiyaha midowga Afrika ee gudiga iyo waliba sidoo kale madaxa ATMIS Ambassador Maxamed iyadoo aan weerarka dawladda Soomaaliya aysan ka hadlin misna aysan tacsiye ka dirin ayaan war saxaafadeed ka soo saarnay haddaan ahay ATMIS ayaa lagu xaqiijiyay misna lagu yiri qoraalka iyadoo markaasi lagu xaqiijinayo in ay sababtay dhimasho iyo waliba dhaawac waxaana tacsi u direynaa dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ATMIS waxa ay tacsiyo tiiraayan leh ay u direysaa qoysaska asxaabta iyo qaraabada dadkii markaasi ku dhintay waxa ayna sidoo kale caafimaad degdeg ah u rajeynaysa kuwii ee ku dhaawacmay weerarka ayaana lagu yiri war saxaafadeedka xogta aan helnay ayaa sheegaysa in 3 qof ay ku dhaawacmeen weerarka xogtu waxa ay sheegaysaa in qaar kale oo kamid ah dadkii ku dhaawacmayna ay dhinteen kuwaasi oo ahaa ajaanib markaasi ka shaqeysa xarunta xalane weerarkan waxa sheegtay kooxda aas iyaga oo sheegay in ay dileen 3 qof taasi oo markaasi ay ku sheegeen laba cadaan ah iyo waliba sidoo kale hal qof oo Wandees ah misana dadka halkaasi weerarka ku dhintay waa sida ay sheegeen iyadoo markaasi u muuqato waqtigan la joogay in kooxda aas ay markaasi weeraro iyo waliba ganta ay markaasi hoobiyaal ay ka geysanayso xarunta xalane iyadoona xarunta xalane gaar ahaan ATMIS iyadoona sheegtay in aan u joojinaynin misana aysan cabsi gelin doonin hoobiye iyo waliba sidoo kale wax kasta oo ay soo qaadaan hadaba aragtidina qaybta hoose faalada commentiga nugu muuqaalka noo share garee